السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamaa ummadda Soomaaliyeed inta muslim ah dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaan maanta soo booqanay iskuulka ilmaha agoonta ee Al-Mustaqiim oo ku yaalo magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Siinaay oo maanta ay ka jirtay is arag iyo booqasho iyo ka warqab ilmaha agoonta ee xaalkooda. waxaan u sheegayaa meeshan waxa jooga ilmo badan oo Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed oo dhan isugu jiraan oo baahiyooyin badan oo gaar ah qabo oo rabaan in mustaqbalkooda iyo noloshooda aad loo dhiso. waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed jaaliyadaha dibadda joogo, dadka waxgalka ah, dadka ganacsatada ah, in ummadda inay isgaarsiiyaan oo arrintan ilmahan ay meel fog gaarto. qof kasta oo wax ka qayb qaadan karo inuu ka qayb qaato oo arrintan ayada ah oo ka soo qayb qaata ka codsanaya ummadda Soomaaliyeed. adiga nuurki eebe adiga ifiyay koonka rabbi baa koryeelay qadarka yaa imaam al-anbiyaai dadka oo idil lamaantood adiga gaarsiiya diinta adiga kormaynay nabiyow adiga quraanay ahmado ya habibi ya muhammad ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka rabbi ya allah rahmano adiga ifiyay koonka adiga u qaybshay quudke naga yeel mukhtaar safkiisa naga yeel kuwii adeecay amarkiisa sax u qaato sunadiisa kor ka yeela ya habibi ya muhammad ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka. aniga si wax loo qor ma kaseenin, si wax loo akhriyo ma kaseenin, laakiin alxamdulillah fursada leesii iskool xirso orfa liiraha fursad isii si wax loo qoro, si wax loo akhriyo waxyara bartay ma fahanti. marka idinkana haddaad dadaashiin rag iyo dumar haddaad dadaashiin insha allah heer waa gaaraysiin ee dadaala waxaysiin waxbarashada insha allah tacaala. waxaan kaloo mahad ballaaran aan rabaa inaan u celiyo ardaydan quruxda badan qaabka ay u fadhiyaan, qaabka ay maxaan ku dhahaa isku soo diyaariyeen, sida quruxda badan ay u nidaamsan yihiin iyo wajiyadooda quruxda badan la aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa. waxaan idin rajaynayaa saan iyo si ka wanaagsan inaan mar walba iskugu imaano markaysaan camal jirto. aad ayaa ugu mahadsantihiin. sida arkaysiin waxaan joognaa dugsigii agoonta Al-Mustaqiim oo runtii loogu adeego agoonta iyo danyarta Soomaaliyeed. haddii aan lahayd waxbarashada maadiga ah sida iskuulkan oo runtii tiradan la markaa faraha badan agoonta wax ku bartaan iyo danyarta, iyo sidoo kale dugsi quraan ku yaalo xaafadda Israaca oo asigana agoonta ay ku bartaan quraanka kariimka ah, iyo weliba howlaha kale oo sanadlaha ah sida ramadaanta oo kale oo qoysaska agoonta ah runtii afurin loo sameeyo iyo ciidaha kale agoonta laga farxiyo. runtii howlahaas oo dhan waxaa gacanta ku hayo fududeeyana hay'adda Al-Mustaqiim iyada oo kaashanayso walaalaha muxsiniinta ah ee Soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba. maanta marka munaasabadda maanta aan isugu nimid waxay tahay walaal Soomaaliyeed oo muxsin ah kana cudur daartay inaan magaciisa aan shaacino oo naga codsaday inaan u qarino maadaama uu wax sadaqaystay sadaqaduna ay ku fiican tahay maxaan ku dhahay in la qariyo. marka walaalkaas ayaan insha Allah taala sadaqada uu soo baxsaday inaan ugu mahad celino ayaan isugu nimaaday. ujeedada marka xafladan kooban u sameynana waxay tahay in walaalkaas lagu daysado. Al-Mustaqiim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen. iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood $180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab.
adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisii damaanad qaaday. Waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo, weliba agoonta waa laga dardaarmay. Shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa.